يمادين تو يمادو هذا وشذا يابين أهلا يابين هذا مدين أدونك بس بيكوت كدغيري هذا كس ما يسندارك ما يسندارو اسكن تو يمادين تو يمادو هذا وشذا يابين أهلا يابين ورئيسكان waxaa marti ugu Axmed Maxamed Xasan Qaal iyo Hurre Hiire Liibaan oo ah maamulaha dugsiga dhexe ee degmada Xudun. Dhinaca kale waxaan wareysigan sana nagala qayb qaadan gudoomiyaha shirkadda Samtel Cabdulqaadir Xasan Jaamac. Axmed Maxamed Xasan Qaal inta badan waxaa la yiraahdaa qurba joogtu way ka gaabisay doorkii ay كلها هرمرك دقمة حد رسول الله الحمد لله رب العالمين أرضان يقول سلام يا ودمهتنتي مرك حقنا وحان سلام سوتبين يا دمان انت لي سنة صح مدى الصوماليات قال هام غير فضلك موضوع عن كسيه هذا مثلا نبغى سؤال جديد يجي شيء قرطة قربتشوتا بيشا حضون deegaanka Xudun doorka ay ka qaateen horumarka deegaanka Xudun iyo doorka ay gabeen oo waa laba xubno waxaan jeclaan lahaa labadaba inaan beeyay waxaan kaloo aan jeclaan lahaa doorkaas kaalintaan anigu aan kaga aadanahay geelashaashaada ku jirtay inaan si gaar ah u sharxo ugu horeyn horta degmada Xudun waxay aad uga hooseysaa deegaanka Soomaaliya dhamaan haddii aan marka sheego dhaliisha iyo waxtarka qurbajoogta beesha Xudun ku dhalatay ee qurbaha ku nool ugu horeyn marka loo eego deegaamada Soomaaliya guud ahaan waxaan ka hooseynaa 90% kumahan marka loo noqdo annaga ana gabnay waxyaabaha lagu gabay haddii aan qaabto kow degmada Xudun waa degmo qadiimiya oo waliba marka loo eego magaalooyinka Soomaaliya gaar ahaan waqooyiga Soomaaliya waxay ka mid tahay kuwa ugu faaca weyn ugu cimriga dheer ayay ka mid tahay salaadaan ku soo qaarto Burco Laascaanood Eerigaabo bay la tactaa buuhoodle markaan maba jirin markii cudi jirtay haddana maanta marka loo eego buuhoodle iyo Xudun la soo eego buuhoodle waa caasimad Xudun waliba waa tuulo إلى دegmada waxaasoo dhan waxa sabab u ah qurba joogta oo gabtay xilkii kaga aadanaa horumarinta deegaanka aan laba kala saarno waa mid xagga industrialka warshadaha waxa la yiraahdo ama shaqa u abuurka ummadda ku nool deegaanka Xudun haddii ay noqon lahayd iyo haddii ay noqon lahayd camiraadda magaalada la camiro oo xagga tijaarada baamushtarka iyo disk labada arrimood baynu kala qaybinaynaa marka Xudun dadka qurbaha u dhashay waa mare diska iyo baahinta magaalada kuma fiicna talabaad kuma fiicna dhanka maalgelinta la maal gashado oo ama business baamushtar laga sameeyo oo fara badan ama laga sameeyo mashaariic shaqo abuur labada waa ku xigay ayashe rag meel kuma dhamaado rag aad u yar oo tiro kooban baa kacay rag badan baa u kacay hawshaas waxay yiraahdeen deegaanka Xudun Development Organization mashruuc la yiraahdo ayaa loo bixiyay HDO oo ka kooban Xudun Development Organization horumarinta deegaanka Xudun waxay shaqeynaysaa muddo 4 sano 4 sano waxa ay quudinaysay oo ay mushahar u qofka joogta ah 20 macallin iyo 6 waashkan 6 waaji oo magaalada Xudun iyo Bogays ka kooban mushaharka waxay bixinayaan 3 sanadood iyo 6 bilood waxa kale oo ay dhiseen dugsi sare oo Xudun laga dhisay oo secondary waxa kale oo ay dhiseen dugsiga hoose dhexe degmada Xudun oo laga dhigay laba class lagu kordhiyay isla markaa lagu sameeyay dib u habeyn cusboonaysiin waxa kale oo loo sameeyay faraas iyo miisas
ayaa mashruuca HDO ay dhigtay qorbogash meesha la yidhaahdo oo ah ka mida degmada Xudun iyada laftigeeda laba kalaas baa lagu kordhiyey oo HDO ku kordhisay waxaana ardayda loo dhigay kuraasi iyo miisas hor leh oo cusub horta wax qabada HDO hawshaas ay ka fulisay deegaanka saddexdaa sano iyo lixdaa bilood aan soo sheegeen lacag mushahara oo joogtaa baa la siin jiray mashruucaas uu joogsaday markuu muddo soconayay waxaana sabab u ahaa joogsiga uu joogsaday dhowr kow dadkii u dhashay qurba joogta 180 qof ayaa waxay bixiyeen deeqdii ugu horreysay ee la rabay in wax lagaga qabto deegaanka maalgashiga HDO ku shaqeynaysa markii labaad ee aanu ururinay lacag ururin waxaa soo baxay 180 qof boqolkiiba cirka laga eego oo lacagtii bixin weeyay markii xigtay ee saddexaad waxaa bixiyay 30 qof oo kaliya markii xigtayna 8 qof ayaanu ku soo hadnay HDO inaan lacag ku bixino arrintaa waxaa dheeraa arrimo siyaasi ah oo degmadii soo kala dhex galay oo khalkhal geliyay hase ahaatee waxaan jabka ugu weyn abuuray qurbaha u dhalatay oo ubadkooda Xudun wax ka bartaan oo lacagtii aanu ka rabaynayn loo bixiyaan bixin waaye taasaa waxay nagu noqotay mibaajo 8 nina waxay noqotay inaanu dabooli kari weyno 4700 oo bil walba aan mushaar bixin jiray taasaa waxay sababtay in HDO naga burburto inaad deegaanada in badan aad ku soo noqotay waxyaalo badan aad ka fiirsay waxa wax laga bixisaa waxa ku helayay waxyaalaha okay arrintaas waxa weeye anigu horta Xudun waan ku dhashay waana ku koray waxaana ka baxay dugsiga dhexe hoose waana ku dhistay oo waa ku aqalay waxa aan jeclahay oo aad iyo aad u jeclahay deegaanka runahaan marka la sheego waxaana isku taxallujiyay runahaan inaan magaalada iyo deegaanka wax ku qabto hase ahaatee bilowgii ugu horreeyey waxaan rabaa inaan aqal ka dhiso laascanood markaa waxaan u soo diray albaabo iyo daaqado eergaabaan diyaarad marka kaga digay waxaan ka soo baxay oo gaari ka soo baxay eergaabo ilaa Xudun ilaa eergaabo habaarkan baa jirtay xooluhuna way baxeen markii aan Xudun soo galay fikirkaygii laascanood iyo guriga inaan ka dhiso wixii isu bedelay inaan guriga Xudun soo raro saddex arrimood baa gurigaas sabab u ahaa sababta koowaad waxay ahayd gurigaas $30,000 baa iga baxay dhiskiisa waa kan inaan hadda maanta fadhino $30,000 waxaan qiyaasay 15,000 inay noqonayso gacan 15 qalab 15kii qalabka ahaa marka laga reebo $15,000 jiilaalka deegaanka Xudun dadka u dhashay inaan ku shaqaaleeyo oo ay jiilaalka kaga baxaan xoogooda anna igu shaqeeyaan ayaa sababta koowaad sababta labaadna waxay ahayd gurigu inuu noqdo guri bilic iyo qurux magaalada u kordhiya sababta saddexaadna waxay ahayd inuu gurigu noqdo mid qaabka aan u dhisay lagu daydo oo ku fida dhismihiisu magaalada saddexdaa arrimood ayaa horta guriga igu horreeyey waxaa kaloo ku xigay mashruuca laydhka ee loo yaqaano hilko waxay ugu kalifay qurcaan gaari ka soo kaxaystay boosaasaan gaari ka soo kaxaystay gaalkacayaan gaari ka soo kaxaystay intaa aan waddo soo marayey mar walba deegaanka aan soo dhex marayey wuxuu ahaa deegaan hadday tuulo tahay hadday degmo tahay laydhad ku yaaleen oo laydh ka baxay markaan Xudun soo galana waxaan soo galay iyadoo qubuur oo eego madow oo aan meel fooyis ka baxay oo bariiqaya mooyaan aan meel kale oo xabad laydh lahayn ayaan magaalada soo galaa waxay isku taxallujiyay in deegaanka Xudun dadka u dhashay qurbaha ku nool inay hawsha magaalada laydhka lagu gelin gala qayb qaataan nasiib darro maan helin waxaan ku tiirsiistay marka inay Xudun iftiinto aan laydh u sameeyo waxaan keenay mashruucaas hadda ka shaqeeya ee laydhka hilko baa la yidhaahdaa Xudun Ilays Company mashruucaas habeenkii ugu horreeyay ee Xudun waa layaal dhowr iyo 20 oo xambaarsan laambadaha dhaadheer suuqa dhexdiisa ay ka iftiimaan guryuhuna ay wada galaan
وليركا الله داره وحياه لبكم إلى تطبع فيش الصدحات كودي مشروع عاص مركي أنا بالعبي أيا واحد خص وحا إذا لقى يبقى اللي هذا حسن أحمد حسن قصر ومركا شرب يقول أنا قوي بالسنتج العادة صادري العادة صار نقطي من أنا كل ما يستطيع وحي مركا يقدم سلاس أيا هو مشروع عاص كوير قلي لا يا مانتن أو هاي بيشط هاي شان يطلعون في جولاي 2012 مشروع عاصنا الحمد لله رب العالمين وكوير قلي مقالدنا الليل هاي كل هذا هاي وحايل راعة مقالة التلفون ما راعين waxaan isku dayay inaan telefoon yana keeno anu ma awoodayna shirkadaha xaba sida magaalada Soomaaliya geliyay inaan maalgashi aanada loo geliyay telefoon hala keeno Maxamed Xaaji Aadan oo telesom shirkada la yiraahdo gudoomiye ku-xigeenka ah oo nin deegaanka u dhashay oo aan adeer wahay inaan la hadlo telefoon soo geli Maxamed Xaaji Aadan oo iga aqbalay sidaas la Maxamed Xaaji Aadan telesom ku keenay waliba markaas uu sheegayay oo aan sheer ka qaatay sidaas la markaa telesom ilaa hadda yana ku shaqeystaa inkastoo shirkadda la yiraahdo Somtel ayana ka gadaal ay soo degtay labada shirkadood ee telefoonada ah waxaan filayaa Golis baa wehelisa Golis anteenadeeda ayaa inuu ku dhow oo meel magaalada agteeda la keenay telefoonadoodan way ku shaqeeyaan laakiin xafiisku ma laha ilaa iyo hadda anigu labada arrimood ayaa horumarin intii taalkaya aanu qabtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijkii horumarka iyo doorka boqortooyada degmada Xudun ganacsi fara badan oo adiga ninka koy sidoo kale ama sida shirkadaha leerka ama sida ismayaasha biyaha oo kale sababta maadada abeerkii keentay oo dirgelisay inuu ka shaqeeyo degmada Xudun oo afreeda saac u noqon waayay sabab bixinaysa وأنا أضمن نوصل على أن أنت باهية هاي قاعد وقت بتشوف مرة بعد أن تعليه اللي هو فيس كيف هو عند قاتي هذا الشخص المشغيني فيس كاسنا هو فيس طبعا وأنا دي شيء صوت عن أفراد السعودية وأعرف أن هذا اللي وحينوضع عن إلكتريك جنريتر بينوضع على قريبة كاروع لكن واحد دي شيء سيدا نوصل على أن حد الله يتكبحه أيام واحد جعله هنا حدنا لا يركاسون النقطة من تذكر تسي فرحان وأفضل تسعة وشقية وجعلان لها لكن هو يسور الجلوي صرتوا غير كوح على الدار أفضل الصبح نمو سنتك سلادة آذية هاي وقفها إلي استان ويسدوا لي المسك سيفتين فرحان الله الدنيا مركع لحظة الصبح مركع صبح سيدا والله وسع شنطة قلبتنا والله دارا هو يتوقع بأنه مركع السيحة مياه شنطة قالوا لما إلا هو يتوقع بأنه يزدارين سيدا هو 6 ساعات 6 ساعات وحنا إلا لحفظ شنفظ بشي باطلوا كي نفترض إلى خالد هاي يسلي الجين يفلتر ريسك ودمي وسهل كذا ينوى بريمي كذا عارف تتذكر لقوه ويو يحد لقاء هذا marka la isu keeno oo la soo ururiyo waxay kaafidaa shidaalka saliidda iyo qiimaha filtriska iyo shaqaalaha mushaharkooda waxa ka soo hara lacag yar oo ama boqola markay ugu bataan 300 baa ka soo hara 300 meel baan u dhignaa mashruucu wuxuu ku bilowday markii hore 320,000 iyo 230 maantana haddii la qiimeeyo run ahaantii wuu isdhalay wixii 300 ilaa 200 ee faa'iidada ay ka soo hara kharashka ku baxa mishiinka ee aanu meel u dhigno waxaan ugu talagalay dibri haddii mishiinku jabo sidii loogu hagaajin lahaa haddii bir cable loo baahdo gowlisa sidii aanu iibi lahayn cables baa jira waxaa soo dhan magaalada Switzerland baa jira waxaa soo dhan magaaladuna way fidaa hadda
Soomaaliya lagu sheego xasan marka waxyaabahaas magaaladu ay la fido mar walba waa in leerka la kordhiyaa oo la gaarsiiyo xaafadaha waxaasoo dhan qarash bay u baahan yihiin qarashkaasuna ma aha mid annaga ragaygii markii hore hantida keenay in mar labaad jeebkayga wax la weydiiyo maaha laakiin waxa weeye wixii isaga u yaalla meel in lagu kordhiyo 23,230 mashruuca ku galay maanta haddii la qiimeeyo isu geyn 2 mashiin oo waaweyn baa yaalla oo la kala nasiyo waxa kale oo iyana ku jira biro firara waxa ku jira waayarada dabqaadayaasha waxaasoo dhan marka la sugayo kuwa dadka inaanu dabka qabsan ka ilaaliya oo af Soomaaliga aanan garanayn laakiin la insulators waxyaabahaasoo dhan marka la qiimeeyo maanta lacag aan u malaynay inay 150 ilaa 160 kun oo dollar ka yarayn ayaa maanta xudud maalgashi ahaan lay kugu jirta isagaan isdalay lacag taayir aan u dhigayaa mashiinka laga kaydiyay alaabtana maalin walba looga gadaa maalinka maanta aan idin la hadlayo waxa weeye haddii laga dhigo 24 saacadood waxa weeye shilin uma dhigmayo oo 300 ilaa 200 ilaa 100 u dhigmaya ma dhigmaya bari markuu xumaadana cid hagaajinaysa male talabaad waxa weeye haddii 24 saac laga dhigo oo xataa ay noqoto inaan waxba loo dhigin 24 saac oo shidaalka uu cunayo wuxuu noqonayaa inaan mushaharkayga ku daro oo ku kabo kumana kabi kara dee mushaharkayga kuma kabi karo si xudun la hesho xudun anigu waxaan ugu talagalay uun keliya in baalayaasha suuqa mara ee dadku ka faa'iidaysanayaan leyrka masaajidada leyrka la siinayo saldhigga MCH oo kale saldhigga booliiska oo kale meelaha minka mucaamadaha oo kale macadka diiniga oo kale meelahaas oo dhan inaan siiyo leyr deeqa oo bilaash aan ugu talagalay waxaan marka ugu baaqayaa reer xudun oo haddaad dalka joogtaan iyo haddaad dibadda joogtaan warnimayo anigu faa'iido kuma qabo leyrkaa wax faa'iidaa kuma qabno dakhli nagama soo galo weli lacag uu leeyahay ma aanu cunin wixii ka soo baxay iyadaanu dib u gelinaa haddii aynu solar ka dhignaana kaba si fiicnaan lahayd solarkuna waa qaali sidaa laynoo kama baahna idinkoo kaca oo ila noqda shurub oo aniga shirkadda ka soo qayb gala oo aynu u bahowno oo idiin furan oo aan idin diidayn baan idinku baaqayaa haddii ay noqoto inaynu shidaalka magaalada deeq uga bixinno oo aynu xitaa leyrka bilaash uga dhigna 24 saacadood maalinta motorka xumaadana aad ila samaynaysaa mushaharka aday ciidamada ka shaqeeyaan ay sidaa u qaadanayaan reer xuduno dal iyo dibadba anigu xoolay kama rabo waxaan idinku baaqayaa wixii dan magaalada u ah inaan raalli ku ahay idinkuna baaqay Axmed Muuse noqono maadaama tahay qofka ugu dhashay degmada xudun inta badan waxaa jirta qofka deegaanada u dhalatay oo maalgelisa wadamo kale taan maxaa ka jira way jirtaa qofka fara badan oo reer xudun ah oo aan aad u dhaliilaya baa jira oo aan oran karo waaba 99 waxay maal gashadaan Kenya waxay maal gashadaan Tanzania waxay maal gashadaan Junuba Sudan waxay maal gashadaan Uganda waxay kaloo maal gashadaan dee qurbaha oo dhan North America iyo Europe kun ahaantiina waan isku taxalujiyay in badan war inay maalgashi aad ku samaysaan deegaankeena si dadkeenu ay shaqo u helaan laana waxa weeye hadda hilko shirkadda leydka 5 nin baa ka shaqeeya shirkadda telefoonadana waxaynu ka warrami doonaa cabdiqaadir xasan shacbayna ka warrami doona kan isagu gudheeda 10 nin baa ka hawlgalo ka shaqeeya marka haddii ay maalgashiga ku samaynayaan wadamada qurbaha haddii ay diiradda saari lahaayeen inay waddanka iyo deegaanka soo galaan dadka reer xudunka ama caamada reer sool sanaag iyo cayn ceebtaas iyo dhalisha ay wada leeyihiin because waxa weeye deegaanada kale oo dhan waxaad arki doontaa Burco ama Hargeysa ama Xamar dad u dhashay Soomaaliya sanaag oo maalgashi ku sameeyay halka deegaankoodii aan wax maalgashi aan ku sameeyay arrintaas waa dhaliil aad u weyn waxaan ku boorin lahaa dadka soo sanaag iyo cayn u dhashay inay deegaankooda iimaansadaan shaqo abuur u sameeyaan maalgashi ka sameeyaan lacagaha isku daraan oo marka lacagaha isku daraan ay wax ka qabtaan haddaan tusaale soo qaato reer xudun oo kale
buurtan xagri la yidhaahdo meel darrele la yidhahdo ku taalla darrele naturally markaasaa isha ugu dhufato waxaa iska dunduda istambarkii iyo rijigii baa iska yurura buuruhuna waa wada macdan sidaad ogtihiin waxyaabahaasoo dhan sibirkii baa laga samayn karaa istambarkii baa laga samayn karaa jingadii baa laga samayn karaa birtii baa laga samayn karaa rinjigii baa laga samayn karaa waxyaabahaasoo dhan waa maalgashi faa'iidaa laga helayaa waxaa laga helayaa shaqaalihii oo dadkan baagamuddada noqday ee waddankoodii ka hajiraya ay ku degayaan oo ka shaqaynayaan waxyaabahaasoo dhan waa dhaliil caamatanna deegaanka sool sanaag cayn dhibtaas way jirtaa waan ka taagan أحمد حسن قاعدين صندوق الله وروح بتشتنا بيشت بتشوفنا waxaad waqtigii dawladda xagga dalka baxday iyo dadka qodobada ay ka baxeen dalka inta badan waxa laga dhaadhacay dalka dawladda ama madbaahin kartaan ama waxyaalaha noocaas sida la jeedayay wadamo kale oo maalgashi waa beeninaya arrintaas soo kala jiraa sababta waxa weeye ilaa intii burburku dhacay sanadkii ama mar baan imaadaa ama laba jeer ama saddex baan waddanka imaadaa meeluna igama xayrna ama wax ka dega berbera oo Somaliland dawladda ku isku dhawaaqday sheegata ayaan soo dhex maraa shacabkeeda iyo dawladdeeda ama Puntland iyo kalkacyo iyo boosaasan soo maraa meel ilaahay wuxuu ugu yeeray marna ma dhicin mana jirto nabad baan ku soo dhex maraa deegaankana nabad baan ku imaadaa deegaankana nabad baa ka jirta shirkadaha iyo waxyaabahan idin sheegayna si wanaagsan oo habsami leh oo nabada ay u shaqeeyaan okay Ahmed weli barwaaqo dabad su'aasha ninka weydiina waxa weeye maadaama lagu ahmad badan ka fiirsay deegaanka xukunka maxaad ugu baaqaysaa inay qabsadaan deegaanka waxaan oran lahaa walaalayaal horta waxtarku sidiisaba waa laba qaybood mid muuqda iyo mid qarsoon afka galada dhaarag iyo indhaag waxa weeye ka muuqda waa marka aad dee qof intaad u timaado aad lacag deeq hanti deeq aad siiso ka qarsoonana waa marka aad xooggiisa maasho oo mushah iyo shaqaale nimo aad ku siiso oo isna kuu shaqeeyo adiguna aad mushahar siiso taasoo dan u ah marka waxaan odhan lahaa walaalayaal deegaankeenna waxaa ku nool dad aad u fara badan oo danyara dadkaa danyarta ah waad ogtihiin qofku hadduu danyar noqdo dana badan baa lagu wufin karaa oo siyaasadeed waxaan odhan lahaa walaalayaal waxtarka ugu horreeya aad deegaanka baraysa ha noqdaan inaad ummaddiinna u naxdaan oo aad u samaysaan maalgashi shaqo abuura oo aad ku soo noqotaan deegaankeenii oo aad shaqooyin ka abuurtaan dadkiina dejisaan oo ka dejisaan waxaan kaloo kula talin lahaa arrinta muhiimka ah deegaanka aynu ku noolnahay ee degmada fadilku tunto wuxuu leeyahay dhul daaqsimeed fara badan oo ballaadhan daaqsimeedkii faraha badnaa ee ballaadhnaa hadda waa lagu soo baahay waa lagu soo ma jecel inaan halka ka magacaabo laakiin dhulkaa lagu soo baahay war waxa la kala hadha oo miyigiina waa lafdhabartii xooluhu waa lafdhabartii ummadda Soomaaliyeed ku dhaadi jirtay weeye lafdhabartii weeye war lafdhabartii yaan laga tegin war maatada miyiga laga soo xareynaya ha la joojiyo ha lagu gooriyo reeruhu inay miyiga qaar ku noolaadaan qaarna magaalada ku noolaadaan weliba ha la isku dayo in deegaamayn la sameeyo oo xoolaha soconaya ee abaartu intaa wato la dejiyo oo loo sameeyo deegaankaas si carruurta miyiga xoolaha ku raacdaana ay waxbarasho u helaan walaalayaal deegaankeena si indhaaragta ku taro oo sidaas waxba tarimayso inaad maanta ka badbaraysa iyo kabada safar u qaaday ama $100 siisay oo ka baxay waxba ma tarayso raadis reemayso laakiin wixii mustaqbalka laga taliyo baa waxtar u ah waxaan kula goorinayaa deegaanka dadka u dhashay inay dadka siyaabaha noocaas wax ugu qabtaan أربعة لما سألنا ويجي عاد هذا حنقول مقالة إلى الجواب قرطي جوابتي ليش يسأل يا جواب ثاني
runtii xagga suugaanta ama qoraalada ma aan hore uma aan aqoonin laakiin 2007 October markii la soo qabsaday waxaan bilaabay inaan telefoon si joogto ah waraysi ula yeesho ummadda Soomaaliya ku nool ilaa xamar markii dawladdu gudbay intaa waxaan isku taxalluujin jiray inaan war helo ama xog helo kadibna maalintii la soo qabsaday waxaan bilaabay inaan xogtana lacag faraha badan telefoonkan ku isticmaalo inay noqoto mid raad yeelata waxaan kaloo bilaabay inaan markaa suugaan aan aabahay gabi jiray afsiyaashayna gabi jiray inaan iyaduna ay ciid iyo ilgabay wax leedahay aaniyana isku daray waxaan aaminsanahay qof kastaaba wuxuu isku taxallujiyo isku dhigo inuu la keeni karo la qabsano afar buug baan qoray afarta buug weli ma aan samayn taabacaad print out wax leedahay laakiin waxaan ku camal jiray haddii ilaahay yidhaahdo inay dhaqso soo baxaan sababtoo waan diray waxaa lagula maqanyahay India in lagu soo daabaco afarta buug waxay kala yihiin mid waxaa la yidhahdaa halgankii gobonimada iyo hawlihii ka dambeeyey halgankii gobonimada iyo hawlihii ka dambeeyey wax kasoo bilaabay 1200 xilligaasoo lagu wado Cabdiraxmaan bin Ismaaciil oo naanistiisa la yidhahdo Daarood uu ka soo degay xeebaha gobolka bari dabeedna uu ku baahay Soomaaliya xilligaas ka soo bilaabay waxaana ku joojiyey buuggaas maalintii Cabdilaahi Yuusuf xilka ku wareejiyey Sheekh Shariif waan markaa Jabuuti aniga lafteeda berigii lagu doortay aan joogay tasxiin buuggaas waxaa ku sameeyey wax la yidhaahdo duplicate copy aan ahayn original waa buuggaas halgankii gobonimada iyo hawlihii ka dambeeyey struggle of independence and aftermath baa la yidhahdaa afka ingiriisiga wuxuu xambaarsan yahay buuggan taariikhda ku kooban ilaa labadaa xilli aan sheegay 1200 iyo maalintii Cabdilaahi Yuusuf iyo Shariif la kala wareegeen xilka oo ku kooban wuxuu kaloo xambaarsan yahay waxyaabo badan oo jugraafi ahaan looga faa'iido Soomaaliya oo kaloo xambaarsan yahay waxyaabo religious oo xagga diinta wuxuu xambaarsan yahay geography wuxuu xambaarsan yahay culture wuxuu xambaarsan yahay suugaan waxyaabo badan baad ka heli kartaa buugga dhaqsaan loo daabacay haddii la yidhaahdo buugga labaadna waxaa la yidhahdaa darwiish taytarkiisa magaciisa buug laakiin subtaytarkiisa waxaa la yidhahdaa sebenka iyo sooyaalka Siciid Harti maanaha Siciid Harti dad badan ma fahmi doona waa dhulbaanti markii uu dhashay Siciid Harti oo taariikh la yaqaana habeenkuu dhashay waad ogtiina Siciid Harti gabdho badan baa markii hore la dhashay oo hooyadii dhashay odagana ma jeclaan jirin caadada Soomaalida ayayna tahay in gabdhaha saanta dhashay aan la jeclaan habeenkii Siciid Harti dhashay taariikh baa ku jirta maraba inaad ka sheego laakiin buugaad ka heli doontaa ilaa maalinkaa maanta ah ee khaatuma state of Somalia reer Sool iyo reer Sanaag iyo Cayn ay ku dhawaaqeen oo maamul u jiro ayaan buuggaana ku soo koobay oo dhacdooyinka dhacay intii aan ka gaadhay talkay aan ka qoray buugga saddexaad waxaa la yidhahdaa Catowga iyo Calaacalka dhulbaanti laa maantii la sano la xisabay waa 4 sano badh hadda laga joogo dhulbaanta wuxuu qoraa maqaalo articles wuxuu qoraa gabay drama waxaasoo dhan haddana lagama hoos qaado weli natiijo lagama gaarin si aanay waxaas u lumin waxaan isku dayay inaan recording ka sameeyo oo aan duubo oo aan sajilo iyagana buug baa ka sameeyey aniga idin kula hadlayana waxaan qoray 75 maqaal oo SSC Soomaaliya Sanaag iyo Cayn dadka u dhashay sheeya oo qaarkood sarbeeb yihiin qaarkood masuulaan yihiin waxaan tiriyey gabayo gaaraya 740 gabay gabayadaas runtii korka kama aqaan anigu waxayna burfeenaysaa inaan gabayo ahayn welina ma ictiraafsan inaan gabayo ahayn laakiin
gabayadaas waxay u qaybsamaan gabayo sool sanaag cayn dadka u dhashay khuseeya oo dibaaba waxaana igu horreeyey gabayadii aan u tiriyey reer sool sanaag cayn laba gabay mid wuxuu ahaa midaan u tiriyey kuwa nool maanta ifka ku nool ee ku abtirsada sool sanaag cayn midna wuxuu ahaa mid aan dadka intii ka dhimatay reer sool sanaag cayn aan fariin ahaan ugu gudbinayay shimbirleeda galaydka labadaa gabay ayaa ugu horreeyey laakiin gabayadii waan kordhiyey oo aad bay u fara batay waxaa kaloo jira degmadan xudun dadka u dhashay oo aan dhaliil fara badan ku arkay gaar ahaan qoyska aan anagu ka dhashay waan iyana gabayo badan oo aan ku durayo ama ku tilmaamayo dhaliishooda iyana aan sii daayo laakiin ma jecleen aan hadda meejaha idinka sheego gabayada amase kamaba gaadha okay وأنا دلوقتي أنا دلوقتي قلت لكن هندسها دلوقتي معلش كان hindisaha anaga iska lahaa runtiina waxaan ka cabanayaa dadka reer sool sanaag iyo cayn ee arkay bugaagta aan qoray sida kan ama gabayada arkay ama maqlay waayo gabayada badhna miidiyahan geliyey websaydada qaarra waxaan ka tiriyaa magaalada gudaheeda oo kale tana aynu joogno maanan arag dadib u dhiiriya taana waxaan u malaynayaa ma aha caado cusub reer sool iyo reer sanaag iyo reer cayn waxay had iyo jeer qiimeeyaan waxa dadka kale leeyahay laakiin hoostooda laba arrimood oo ceeba bay leeyihiin waana jeclaan lahaa maanta inaan ka faa'iidaysto inaan fariintaa gudbiyo waa mari horta waxma qoraan waxay keentay inaanay wax qorin in taariikhdoodii ay lahaayeen la qaato oo cid kala sheegato oo qorto oo gaal iyo islaamba laga dhaadhiciyo bay keento oo dhashay waxay kaloo leeyihiin ma dhiirigeliyaan dadkooda inay dhiirigeliyaan kii wax qoraya ama gabyaya iyana ma dhiirigeliyaan laakiin waxay dhiirigeliyaan mid wax kala cid kala qortay ama gabay iyo taariikh cid kala tirsan ay jecgeliyaan labadaa arrimood in laga waantoobo baan jeclahay la dhiirigeliyo in ka kula dhashay sugaantiisa iyo taariikhdiisa aanad hoosu dhigin ee aad keenayso talabaad xataa haddii maaragtay gabaygu xun yahay ama gabayga ninka reeraysiisi xun yahay ama buugga uu qoray xun yahay waxaa loo baahan yahay in la saxo waxaa loo baahan yahay inaan la niyad jabin waxaa loo baahan in la dhiirigeliyo waad ogtiinoo gabayadiisa maxamed cabdulla xasan ku sinaana iyo daraawiishtii ilaa iyo ismaaciil mire oo ah hamiigii gabyaaga ah ee reeraysis in gabaygii anagoo taleexnaa jihaad taladii soo qaado in loo bedelay dille iyo geerash lagu bedelay raadka la masaxayo ee taariikheed waxay ka noqon kartaa gabayga dhillada iyo geerashka lagu bedelay gabayga ismaaciil mire mid laga damqado oo xanuun leh oo waaqiciga tilmaamaysa ayay ka mid tahay su-aasha ugu dambaysa axmed aan ku weydiinaynaa maadaama hindisiyaha filmka u iska lahayd markii aad qur-aankan iyo suukan aad bileeday ma hesha cid kaa caawiso waxaan isku dayay rag badan oo sugaan yaqaana waxaan idinka ilaaway buuggii afraad baan idinka ilaaway buuggii afraad waxaa la yidhahdaa dhaqanka waqooyiga soomaaliya ee reemiyi baa la yidhahdaa isagaa buuggaas anuu reemiyi runtii ma noqon anigoo afar jir baa miyi laga keenay dabeedna magaalada xudun baa laga keenay laakiin fasaxyada ayaan deegaanka miyiga u bixi jiray waxaa ii suura gashay inaan miyiga dhex tago rag waaweyn oo reemiyiya waxaana isku dayey inaan ka faa'iidaysto oo buugga wax loo kordhiyo aqoontooda miyiga waxaan si arkay inaan anugu ku dhaamo miyiga iyo taariikhda waayo waxaa ka lumay dhaqankii miyiga baa lumay reer miyigii waxay hadda u dhaqmaan sidii reer magaal afgariism bay ku hadlayaan af soomaaliga ku darayaan oo haddaad aragto ummadda soomaaliyeed ilaa iyo wasiiro ilaa madaxweyne ku siman qofka soomaaliga ah ee maanta sidaad qudbadteeda lagama yaabo inuu ka reebayo qudbadiisa ama hadalkiisa afar jamiil ama carabi ha noqdo ama ingiriisi ha noqdo waxaana qiyaasayaa oo malaynayaa xilliyo aan fogeyn oo aada u dhow inaad soomaaligu dhimanayo baan malaynayaa oo hadarto anigu tuhmaya miyigaas
كان تجي عن السودة مركان وحلاقة عاوية في الميجي وأكو خسارة مجال هذا أنا قصو عن السودة يحب مجال الشجاع وأقول له إن إلى هذا وحلاقة ساعدة نيل عبد الله حسن محمد عبد الله إسبانيش ليه هذا تاريخ دبوك كان هيستوري يعني قريب عندك عم قريب حبوا يساعد حبوا يقطري حرس كان الله كورا بإنجنير عبد الشيء كان عقله ويسوونه يقطع عن قطري محمد أحمد محمد حسن قال وأهويل كذا أباد المكوي هاي ويسوونه أيتي إنجنير أيها يسوونه حقه طابعات يسوي الجلنت وحيابها سجى إسكالها سجى بري ما يصير وحكوا اسمه كقرب لاطي الدكتور محمد عبد العجة حسين ويسوونه قتل مامي بوجي ماشي وخريه يرجلين أودي قتل مامي بوجي روح حنباسية هاي وحيابها بفرق بدن وأنا أقول لك بوكو عرق يعني يقول يرجل يبوجي من الغنى يبوجي تاريخ الصومالية نمبر 1 وقاضي وحكوا كتير من اللي هذا إنجنير عبد الرحمن حسي عبد الرحمن حاجة حسي وسنة دقيقة خدوا نور شيء أغلب كان هذا انتقلنا يدير حس هل كشغل بنام بكل شيء عبد الرحمن حاجة حسي هذه ولاد وهاي شريك إن كان صو اسمه غير معرض انت أصلاً هي إذا لقى يبغى في الجوج يساعد لكن جوار كلام يعفر لها ما يفيدون يساعد سؤال شكل هذا يجلسين دينا وحياة صحابة وصفهم تيانو وقرب شوبة أيما أنه حيل سؤال غير رفضا رحض المرخي أركان هبين والبا كيف إذا قطع وضان بوه له أما كرباي أما بطل أما مالهبلا أما أنا قطع ما الله هرين لك حاجة أما أنا قطع طبق عين لفتيس فهبين والبا وحلا قطع وضع تلفزيون كان وحي حرك لهو بريستيجي وحي لقطي مرات الغرب هو حساسة سنة يصول أنت أقول حيسة تطبق بالنورة فمرات الغرب هو دخل قربان شبناه كذا واي waxaan wardadka kan meesha meel dad ku nooleen weena hadli aqoon arintii markaan baarnay waxay noqotay dadku uu hadli lahaa waxaan jiray saxaafad soo gaadhay iyadoo ay leedahay magaalada xudun ee waliba leedahay qalabka casriga ah ee leeyahay internetka iyadoo ay leedahay misna dadku waxaan ku dhex jirin wareeyaan joogta ama jooga warka si toos ah arintaas waa arin bishaare leh الحمد لله رب العالمين يوسف ديراي نلا جوجا ووريها نكوبات يعدل تصوب حي يوسف ديراي مدة 14 تبر بودي وخطر بري محمود وهذا كاميرا دهية وخطر بري عبد الله يره أكبر ينام بمياه كتر بري بحث حافظات عبد الكريم يوسف حجر وأن شاء الله هي وسبب لفتي سوى عرضي كبح ضي إيش قلوا سكندري بحدود كبح ضي عن شاء الله هي إنه يسوون ورئيس بحيه وقدره بعض الصحافة أنا ما تكمله ولربنا يدرك حدود 6 ساعة وريال ونقدان أو في مكان شراء هيدرس في عبد الكريم يسولون عبد إيش بحنا يقولوا واحد وحدة هنا قال يراه كل شيء تجمل حدود الله يحدنا عن كمل عبد وقت باص تصل بالرئيس وهوسه لما عمل واحد كبح لي سكندري والنصيب هالشيء سكندري يقول لي يقول بشوفه يحب كفاية هنا صومك بدو الله فوق كبح ما أقدر واحد نصيب هالشيء هنا عمود من الفرسكي هذا كقل إنسبينه سو بصها دي على يدي فالموضوع شيء عبد الكريم ما أنت صحافة واسطة بيرفي صحافة دقمة الخطب والواحد كشة كيسا وحي عدنان تعرض نقطة في بعض الحالات بسم الله الرحمن الرحيم وصلت له حاجة شيئا تفسر مثلا قال عنه إذا جو سكوتي تدري تجعله بالمجد سوينا وقت من السنين أنجبي أكثر سنة وقت من حن في الجامعة عنه في سنة وقت من الفصل أرد بدن بانو قبل الجامعة عنه وقت سنة تدوس الشركة بعدين تدوس الشركة بعدين ونوجه التدريب
والله ترند ما يرى وأعطوا إلى أعطي هنيجا أنت عمود كشيء أنت عمود كشيء وافرت أنت عرض الحد السكندري سكول ككبح ذي كلامه اسمه صحيح وما أنت جامعات ده وإحنا كقلنا شبيه وإحنا دكتور وإحنا غربك ليس عمود كتير قياسك والله أعطي تربية أعطي رابي وأخر بقلاتي عن خيره هذا هو البلد اللي هي تكبر جالس تلقانه يا أوشان والله أنت عن جبل سوى البلد واحترق أبو مغيا وإن النقطة بالجود كسينا أعطينا كثير الصراحة لأن أعطينا نقطة خير إن شاء الله كتير كلام كان ساعات على ما يأخذ شيء صار ما أجمل هنا أنا أنت بطلين كبرنا السنة الجديدة ما شاء الله دي لا كده أقدر حوصل يا سكتي يا فلوس دي عن إلهي يعني بس أصير بس ما تعاوز في السكرات هذا صحافة ده سجل تقول ما فدا مكر ولا عدو كان فدا كان يتسين جوي سنة ما تمام سنة كده خد مجانا أنت أنا الله بنا مرة في البشر على سنوات مرة في البشر على عقاب دور ما كان شيء أغرب تفسير ده قالوا بيرس عليه قدرنا واحد في واحد هذا واحد أدريس عندنا سيدنا ماشي بعيدون على عقاب فليت ديما في الحروب باقي يعني في القاطان في حفظ السنة هاي في يريد اللهاي يعني يريد الريان دقمي فيه كلام حان دقمي أحبرش كسميال حدو فران فرفضو فران كل جودنا حان خلاص يعني تسعة ويعمل فيه تسعة وكذا كل شيء وحن باقي لها جوابته واحد بلاش ما أما سكشغل وبلاش كشغل معها صوت وحوي يوم وفلنتري وكشغلين كلامنا وبلاش سيمبلي إن ما ظنوا ورنا وين كمرضنا ويكودوا بالكلام مجالنا وحي كدعة أما كتيرنا ورئيس ويكقاعد الكلام هو نسوق الدنيا لكن واحد وقعته إنه بغيس وبهنا يسمع الله وبابور لك حيصنايا إلا تجي يلف وينه إلا تجي يضرع إلا تجي هدي بقدر ما يسر مايو إلا تجي خل مجالنا إنك هراك حاجة تقول حكمته وردان سرعان بيكتجيا واللون بهاي هاي لا والله لقى صدوه لا والله لقى صدوه دماغه بين أيام وحك حسن يا بابور شدار بكون بحياة كذب وحكى بحياة كهرباء ضبطي مطور بيدارنا أيام وشدار بها حيابها صور معها أهيسها أنا وحن قبار يعني يسحل قامان ضد كحضر الشيء وبتشوفته منك يا عبد الله السلب عجب دقيق يقول البامية إلهي هذا يوم وأنا قارية وهذه هذه السرية سقي بولاد حسن عيبة أنت نوجهي والله أنا نعاد قارية صحافة الله شقية شعر دقان كأنه ورد بدن نقص التبيه في صحافة هرم مرتو أنا وحنا الله والبدومية ياشا بولاد يا عبد الله الله شقية وعرو إنما لا ورياشة دقاله ذي يحنتدو ذا حلا بحيو أنا الوصل يقولنا ورياش ما كنت تقولوا وي وكذا قاتين مدارسيش بقول الجود وردوكنا وحسبورا ومكاين يجونا أي فصل بستان قولي دراستي سكولك وأنا أعرف هذا باهيدا سكول دكتور هو سيد حياة كم وقتها قال الله تعالى هذا سنة كيهورة داوني سينا سوق بيجي تذكر البهانته يشارك أول بهانه سوبر بيجي سوق باهيدا كم وقتها باهيد السنة ما توحد عيا هدوك بدل وعانو اللي عنده نسيب لي أديكو كيف عيدي سنة ما أنت تولدين سنة خلوا يزيد الصومالية وبتشوف البحثات هو الحرمتي عندك كلية ماهرة وبعنصر المسؤول الحرمتي وفروا وين وفرقلنا مغايله سيقولوا قدريان ذلك يدفع قدريان دبيته أديكو كيف عيدي سنة العقل يسمى في كتشلو شلتي سي حمتها يفقوك عن لهين حاد قرطن لهي إلى أسوأ عوية سنك وسؤالتي عن لبقى وكدوه قيب ولدي مركو هنا هوسك عندك وهلي الكدليل
arrintoodii heerka maanta warbaahinta xudun iyo waxa ka imanaya ay soo gaarsiiyeen waxaa fiicnaan lahayd inay sii wadaan oo maalgelintii ilaa maanta heer bay gaari lahayn waxaana leeyahay deegaankeeda cid walba deegaankeeda bay ay maxay maalgalasho ku sameeyeen waa iskuulkiina ardadiinii baa ku jirta macallimiintii sidii yihiin oo maxay baahidooda ay tahay maanta maamul baa dhashay taas qoladaasaan oranayaa ta kale waxaan oranayaa waan qaladhalaan mar labaad u diraya qolada jaaliyadda dhulbahante in ay haddayna noqon lahayd ururo caalamiya NGO-yada sida kuwa NGO-yada maxay toy dadka maxay toy dhaqaalaha haysta iyo jaaliyadda dhulbahantaba intaasuu aad u dayacan yahay maanta waxaa dhacaya saacadda tan dabaylo xooglaa dhacaya wadnaha farta waxaanu kaga haynaa waadna arki doontaan oo waa lasoo duubay in uu hal mar intiis uuba israaco oo iyadoo waxbarashadiina furitaankeeda uu soo dhow yahay waxaan ka codsanayaa waan qayladalaanta u dirayaa mar labaad iyo mar saddexaadba in ay iskuulka baahidiisu ay sidaa tahay ee u baahan dayactirka in aad maxay toy aad wax ka qabataan oo baahidiisa aad naga dayactirtaan ayaan ka codsanaya qayladalaanta ay soo diray ugu dambeyntii waxaa jirta dadka qurba joogta in badanaa ay eeda saaran dadka gudaha jooga oo ay yidhaahdaan annagu ma hayno dad isku furan ma hayno qof aaminona waxaa qaboo shaqeynaya maxaad kula talin lahayd ka yaab dadka gudaha run ahaantii waxaa moodaa in dadka loo kala warramo dad badan baa yiri dadku waxay u baahan yihiin wax la yidhaahdo mobilisation dadka guduhu wacyigelin keliya u baahan waxna way qaban karaan dadka maanta jooga soomaaliya waa dadkii burburka ku dhacay waa dadkii baadiyaha way soo kobceen oo way fahmeen qiimaha waxbarashadu leedahay noloshii bay fahmeen marka dadka guduhu ma laha eed idinka ayaa jaaniskiini meesha ka bixiyaan anigu oran maamule waxaan guuday goorma ayaa shirkadan la aasaasay shirkadan waxaa laga aasaasay degmada xudun 2000 markaa waxaa la bilaabay guriga xarunta la dhiso iyo tower laakiin shirkadda shaqo ahaan waxay bilowday 25 bishii shanaad 2010 ayay bilowday shaqada in la isticmaalo distributor oo bishii laga qaado shintii laakiin qofku local ahaan u yahay free xagga localka waxaan bixinaa foog xagga dibadda ka ah bilaash oo dadka dibadda hadday jiraan lacag aad iyo aad u soo hadlaan waxaan bixinaa modulo iyana kuwaaladkooda ay wanaagsan yahay waxaan bixinaa facial wireless oo madaxya ah oo aan xarig wadan ee la charge garaynayo waxaan bixinaa internet oo internet cafe ah oo smooth su'aalaha sareeyo waxyaalo badan oo ay wax kuwaas ka mid yihiin baan qabana dishay maamule halkaa internetka ma leedihiin xarun suuqa dhexdiisa mise ku tala jirtaan inaad samaysaan waxaa jira dad ay u xidhan yihiin internetka caadiga u xidhan yahay oo suuqa ka isticmaala laakiin xarun internet cafe nation ka isticmaalo weli suuqa kamaanu sameyn waxaasaan ku tala jiraa saa ugu dhaqsaaqo inaan ka sameyno iyadoo internet cafega laga isticmaalo xafiiska gudihiisa hadda oo kuwaa lagu jiraaba ayaa kuu muuqdaada ay ka mid yihiin laakiin waxaanu si aada u dhaqsa badan u rajeynayna inaan ka furo xarun weyn oo internet cafega suuqa dhexdiisa gudoomiye arrimaha bulshada ma ka qayb qaataan sida iskoolaadka la caawiyo caafimaadka nadaafadda magaalada waan ka qayb qaadanaa inkastoo ay shirkadu tahay shirkad dhowaan la furay
haddana waan ka qayb qaadanaa arrimaha bulshada aan uga qaadano xagga dhaqaalaha aan uga qayb qaadano xagga wacyigelinta aan uga qayb qaadano xagga aan u sahlo internetka wixii bulshada ah oo magaranaysaa anaysinka bulshada loogu qabanayo waan internetka aad iyo aad uga caawino way jiraan waxyaaba badan oo ka caawino ugu dambeyntii gudoomiyey haddaan ku weydiiyo maxaad shirkadaha kale ee magaalada Kismaayo aad ku boorin lahayd shirkadaha waxaan ku burin lahaa in laga hadiyo jeeraale adeega bulshada ama arrimaha bulshada markaan leeyahay arrimaha bulshada dawla yaqaanaan waxaa ugu muhiimsan waa arrimaha caafimaadka arrimaha waxbarashada xagga biyaha waxaan ku wacyigelin lahaa ana naftayda ku cadeeya maadaama aan ahay maamulihii xaruntan in ay shirkaduhu ka qayb qaataan waxqabadka bulshada daruuri